Asalaamu calaykum waraxmatullah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Cumar bin Khadaab waxa uu nin ku soo maray suuqa. Kadibna ninku waa uu ducaysanayay, wuxuuna ku ducaysanayay ducadan: Allahumma ijcalnii min cibaadika alqaliil. oo macnaheedu tahay Ilaahayow waxaad iga mid dhigtaa addoommadaada inta yar, yacni addoommadaada yar. Kadibna waa uu la yaabay, wuxuu ku yiri intee ayaad ka keentay ducadan, yacni ducadan inteed ka keentay. Markaas ayuu wuxuu ku yiri ninkii, miyuusan alla subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku dhihin waqaliilun min cibaadiyi shakuur, waxaa yar addoommadayda inta shukrisa ama ii mahad celisa. Kadib ayaa Cumar bin Khadaab waa uu ooyey. Kadibna isaga oo naftiisa la hadlaya waxa uu yiri, Cumarow, dadka oo dhami waa fuqaho ama waa dad wax yaqaan oo cilmi leh marka adiga lagaa reebo. Kadib ayuu isla ducadii oo ninku ku ducaysanayay ayuu ku ducaystay oo ahayd Allahumma ijcalnii min cibaadika alqaliil, oo macnaheedu tahay Ilaahay iga mid dhig addoommadaada inta yar. Waxaan ka baranaynaa casharkan, haddii uu kuu naseexeeyo ama uu ku waaniyo qof uu kaa waaniyo inaad macsi ka tagto, waxaa laga yaabaa dadka intooda badan inay ku celiyaan maxaa aniga keligay ma ahan, dadkoo dhan ayaa sameeya. Waxaana ogaanaysaa haddii qur-aanka aad baartid kelimada dadka oo dhan ama aktharu naas, dadka badi markaad aragtid qur-aanka waxaad helaysaa inay ka dambeyso markaad aktharu naas ama dadka intooda badan aad aragtid inay ka dambeyso laa yaclamuun ama laa yashkuruun laa yu'minuun, ma oga ama ma shukriyaan ama ma rumaysna. Haddii aad isla sidoo kale aad intooda badan aad raadisana aktharuhum aad raadisana, waxaad helaysaa inay dhammaantood ka dambeyso faasiquun, yajhaluun, mucriduun, ama laa yacqiluun ama laa yasmacuun, kuwa wax maqla inaysan ahayn. Marka adi waxaa kuu fiican markasta inaad kuwa yar ka mid noqoto, sababtoo dadka inta yar ayaa qur-aanka lagu ammaanay. oo Ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waqaliilun min cibaadiyi shakuur, inay aragtid ama wamaa aamana macahu ilaa qaliil ama thullatu min alawwaliin wa thullatu min alaakhiriin. Yacni markasta tirada yar ayaa la ammaanaa, waayo dadku intooda badan ma wada sameeyaan waxa wanaagsan ee nafta lagu dhibo ama lagu tarabiyeeyo ama cibaado ha noqoto ama caado kale oo wanaagsan ha noqote, waxaa sameeya dadka intooda yar. Markasta waxaa laga mid noqdaa intaas yar ee wax wanaagsan sameysa.